بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barnaamijkeena aan dib isu eegno waxaan rabnaa qaybtan inaan ku soo hadal qaadno haddii la yiraahdo raaxada dhabta ah waa maxay. Maxaa loo yaqaanaa raaxada dhabta? Maxay tahay? Sida inaga aan u fasirano in daara dhaadheer la yeesho, in hanti fara badan oo account-ka kugu jirta ay dhacdo, in shahaadooyin sare aad qaadatid oo dhankii waxbarashada ah. Miya mise raaxada dhabta ah waa raaxo kale. Markaan sidaas leenahay waxaan ku eegi rabnaa lensiska iyo qaabka ay wax u eegaan dadkii aan ay tahay inaan ku dayano asxaabteennii iyo taabiciintii iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam noloshooda sidee. Cuthmaan baa waxaa la weydiiyey bal sida u arko raaxo waxa ay tahay. raaxada noloshu waa maxay? waxa uuna yidhi qaala Cuthmaan عندما أرى قدم اليسرى بجوار قدم اليمنى داخل عتبة الجنة. marka aan arko lugtayda midig iyo lugtayda bidix labadooda midkood ma hadii ugu labadooduba catabatul janna marka ay joogaan oo iridda jannadii isaas ugu galeen oo ay ku jiraan markaan arko markaas way raaxada dhabta ah marka aniga aan dareemay labada lugoo kala ah ma micyaarkaas markaad ku fiirisid marka oo aad eegtid waxa ku soo baxaya waxa inaga aan miisaamayno tirada badan waxa inaga waxa weyn kana la ah inaynu wax weynahay lidaalika qof walba inaga naga mid waxaan u baahanahay inuu aad ugu xisaabtamo raaxada dhabta ah waa midda dambe ee maalinta qiyaame imaan doonta. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryayaa in dhammaanteen uu naga dhigo kuwa ku raaxaysta wajigiisa inay arkaan oo uu cafiyo sidaasna aan dhammaanteen ku wada guulaysano. raaxadaas iyada ahi waxaad ogaanaysaa cid ka xigta ma laha. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii iyo taabiciin ku ekiin haddii la dhihi lahaa shar bay ahaan lahayd way noo xumaan lahayd. laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala naxariistiisa waxaa ka mid ah in qof waliba uu awood u leeyahay murashaxna uu noqon karo waxaas iyaguba ay raadinayeen inaan inaguna raadin karno. waxaa laga yaabaa inay isleedahay dambiyaad gashay, waxaa laga yaabaa inay isleedahay waa rafaadsan tahay, waxaasoo qaladaad samaysay ma jirto. jidka ilaahay subxaanahu wa ta'aala aad u maraysid cid aad weydiisanaysid ma jirto, cid kaa xigtana ma lahane ogow. dembi kastood gashay si kasta ha u weynaado mar haddaad soo noqotid ilaahay subxaanahu wa ta'aala naxariistiisa darteed ayaa uu kugu cafin doonaa kadibna sidaasaad ku mutaysan doontaa inaad guulaysatid. albaabka alla ma xirno, albaabka alla wuu furan yahay. laa baab walaa bawaab, cid joogtana ma jiro oo kaa celinaysa ku dhahaysa misoo diiwaan gelis ma u baahan tahay inaad gudaha u gashid misoo diiwaan gelis ma soo goostay kaarka ma jiro. adiga bas ayaa lagu sugayaa. adiga ma lagu heli karaa, adiga ma imaan kartaa. ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu inoo abuuray ma aha inuu na ciqaabo, waxa uu inoo abuuray waa inuu noo naxariisto, waxa uu inoo abuuray waa inaan nolosha ku raaxaysanno, waxa uu inoo abuuray waa awaamirtiisa inaan qaado. sidaa darteed culays kastood ku jirtid hadda ha u qaadanaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu dhibka iyo rafaadka iyo waxaan inagoo dhan saas uu noo abuuray. maya adduunyadana waxaa lagu abuuray raaxo, aakhiradana waxaa lagu abuuray raaxo. isagaana ku ayaad ku raaxaysanaysaa idamkiisa. walidaalika waxyaabaha aadka muhiimka oo qofka inuu ku baraarugo loo baahan yahay waxaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa ta'aala ma wuxuu inkastoo magacyadiisu ay ka mid yihiin jabbaar iyo qahaar iyo markaad fiiriso, laakiin haddana maalinta qiyaama marka maxsharka isugu yimaado ee la wada buuxo aayadda qur-aanka maxay ahayd wakhashacat alaswaatu lirraxmaani. shuf fiiri meeshaas wakhashacat alaswaatu maxaa la yidhi lirraxmaani waa lilqahaari liljabbaari magac kale ilahay looguma tilmaamay arraxmaan weeye. marka sida maalintaas uu noogu naxariisan doono ayaa meel waliba oo aan joogno iyo xilli waliba naxariistay u furan tahay. walidaalika dembi kastood gashay dhiiqa kastood ku dhex jirtid aana waxaa kuu furan in aad intaad noqotid ilaahay subxaanahu wa ta'aalana ishoos dhigtid. laakiin mid ogow ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu naxariis badan yahay intaan dhahno iskama fariisan karno. gacantaada iyo gacantayda waxaa ku jira furihii raaligelintiisa iyo ka cadhaysiintiisa. mid alle midkaan dooranno innagay noo taado. teen dooranaynaa marka mar waliba waa inaan doorannaa wixii isaga raaligelin lahaa. sidee u dooranaynaa? u hoggaansan awaamirtiisa, yarayso dembiga. bini'aadanaad tahay waa dambaabaysaa, iskuma haysto. kulligeena beerta ku jirna, cid macsuuma ma jirto. laakiin yarayso, laakiin soo noqo. haddaad qalad gashidna
durbaba waxaad noqotaa qof taa'ib ah cibaadada iyo toobakeenkana shuruudaheedii oo dhan kulanso ilaahay subxaanahu wa tacaala qalad kastood gashay intuu doona hala ekaado buuraha hadduu la egyahay albaabadiisa way furan yihiin addoonkayga wuxuu weydiistuuna leeyahay isagaa nahay walicabdii maa sa'ala weydiiso waxaad u baahan tahay kadibna waxaan rajaynaynaa dhammaanteen inuu na siiyo wax alla wixii aan ka rabnay insha allah